kobaca dhaqaalaha waxaa kaloo socda wada hadal iyo wada xaajood ku saabsan xal u helidda shirkadda DP World taas oo dawladda Puntland 2017 ay ku wareejisay heshiis si rasmi ah u gashay dawladdeeda ka horeysay baarlamaanka xilliga jirana uu ansixiyay waxaan rajaynaynaa dhaliilaha ka jira DP World in ay xukuumaddu ay si dhow ula socotay muddada 2 sano ah dadaal badan ay ka gashay qoraallo badan ay ka diyaarisay iyadoo la kaashanaysa la taliyaasheeda dhinaca sharciga iyo dhinaca maamulka ah waxaa xogo badan ka ururinay habka suuragalka ah ee arrintaas xal midaysan oo waara oo aanan saameyn ku yeelan xiriirka dawladda Puntland iyo Imaaraat inaan ka gaarno iyadoo ku kooban shirkadaas DP World ama B&O ee dekadda Boosaaso haysa waxaan rajaynaynaa muddooyinka kooban in ay xal waara laga gaari doono iyadoo xalkaas uu dibadhiciisu sabab u yahay COVID-19 iyo socodkii caalamka ka dhacay oo suuragal ka dhigi waayay in si rasmi ah oo foolka foola loo wada hadlo waxaan aad ugu rajo weynahay arrintaasi waan ogahay bulshada reer Puntland inuu culays badan ku hayo waxaan ku kalsoonaataan xukuumaddiina iyadoo ilaalinaysa habka nidaamka dawliga ah heshiisyada caalamiga ah sida loo galo iyo xuquuqda dadka reer Puntlandba inaysan ahayn arrin ay dhayalsatay xukuumaddu il dhowna ay ku hayso anoo og baarlamaanka inta badan walaaca ka soo gaara bulshada haddana waxaan u sheegayaa inay ku kalsoonaadaan maamulkooda iyo dawladdooda inay arrintaas ay tahay arrinta isha dakhliga ugu weyn ee dawladda Puntland ku aasaasan tahay iyo nolosha dadka Puntland